nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban kase xanuun badan oo ku dhacday gabdho Soomaaliyeed isla markaasina mid ayaa ku dhimatay midna sariir ayay u saaran tahay hase ahaatee hooyo Soomaaliyeed ayaa soo bandhigtay gabdho Soomaaliyeed oo doonayay in ay qaliin isku sameeyaan hase ahaatee qaliinka dhanka iskaga sameynayaan sida la sheegay qaybta dambe iyo qaybta hore ayay taagtaagayaan isla markaasina qaliinkaasi waxa ay doonayaan inay gabriyar iskaga dhigaan hase ahaatee maamadani ayaa waxa ay ku bilowday amaba muuqaal ay soo bandhigtay waxa ay sheegtay gabadhaani Soomaaliyeed inay duco u baahan tahay isbitaal Turkiga ayay ku jirtaa waxa ayna doonaysay jirkeeda oo dabcay in ay soo badasho isla markaasina qaliin ay soo gasho qaybta dambe ay qaliin isaga samayso isla markaasina ay taagto qaybta horena sidoo kale ay qaliin isaga samayso hase ahaatee waa sakaraad waxayna ku jirtaa isbitaal waxayna leedahay waxay u baahan tahay duco qarashkeedii halkaasi ayay ku beeshay maanta xanuunkeedii ayaa saa'id ah geeri ayay u dhowdahay waxayna dardaaran u soo jeedisay gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda doonaya inay jirkooda qaliin ku sameeyaan si ay isugu qurxiyaan ragga Soomaaliyeed sidoo kale haweeneydani waxa ay sheegtay hooyo 47 sano jir ah inay ku dhimatay dalkaasi Turkiga ayadoo ka imaatay Canada waxayna doonaysay inay qaliin ku samayso jirkeeda qaybta hore iyo qaybta dambe isla markaasina iska dhigto 18 jir hase ahaatee jirkaani Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku siiyay haddii ay da'dii kugu timaadane ogow jirkaani wuu dabcayaa guurso ama ha guursanin wax dhal ama waxa dhalin si kastaba ha ahaatee maamadii qaliin ayaa lagu sameeyay ayay tiri 7 caruura ayay haysatay 47 sano jir ayay ahayd waxay doonaysay inay isku soo qurxisanin hase ahaatee halkaas ayay ku geeriyootay waxa ay leedahay waa ay geeriyootay lacagteediina way khasaartay taasi waxa u fiicneed inay sadaqaysato ama xajka ay ku aado amaba ay dad masaakiina siiso hase ahaatee gabadhaani Soomaaliyeed ee soo bandhigtay muuqaalka ayaa waxa ay hadda leedahay gabdhow iska jira haddii aad u soo socotaan dalkaasi Turkiga waxaa jira daawooyin qaldan oo dumarka qaarkood la siiyay waxay sidoo kale sheegtay wiil maalin dhaweed la soo bandhigay inuu ku geeriyooday timaha loo abuurayo hase ahaatee baraha bulshada ayaa lagu arkayay dhaqaatiir ama haweeney oo Brazilian u dhalatay oo isticmaalaysa daawooyin feeg ah isla markaasina dad badan ku disha gacanteeda ayaa la soo bandhigay lana qabtay xabsigana la geliyay ayay tiri haddaba gabdho Soomaaliyeed ayaa u tafaxeedanaya inay dalkaasi Turkiga aadaan isla markaasina qaliin isugu sameeyaan maalmo dhaweed ayaa la sheegay gabdho caan TikTok ka ah inay Turkiga tageen isla markaasina isku soo caateeyeen hase ahaatee hadda gabadhaani sariir ayay saaran tahay waxa ay doonaysay inay nin isku qurxiso laakiin hadda sariir ayay saaran tahay oo waxa la doonayaa in loo soo duceeyo ummadda Soomaaliyeed muslimiinta ah ayaa laga codsanayaa inay u duceeyaan gabadhaasi isla markaasina ka digtoonaadaan gabdhaha Soomaaliyeed inay aadaan isbitaalada Turkiga si ay qaliin isugu sameeyaan haddii aad isku qurxinaysanin ogow maanta haddii aad geeriyootid ninkii gabdho kale ayuu helayaa maanta haddii aad xanuunsatid ninkii ogow gabdho kale ayuu helayaa ninna kama dhimato kamana jirato ayaa hore loo yidhi si kastaba ha ahaatee jirkii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku siiyey haddii aad damacdid inaad qaliin ku samaysid si aad 18 jir iskaga dhigtid ogow xataa haddii aad guursan jirkaani waa u dhacayaa haddii aad awlaad dhashidne ogow quruxda waa qalbiga ee ma ahan jirkaani xabadka in la taago iyo qaybaha dambe in la taago quruxda waa qalbiga waa diintaada waa dabeecadaada waa dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban gabar yahay intaad qaliin gali lahayd waxa lagaaga baahan yahay inaad sadaqaysatid isla markaasina xajka aad ku aadid taas ayaa ku fadli badan gabar kasta markii ay 18 jir tahay waxay ku hamisaa inay hooyo noqoto isla markaasina noojiso koriso ay aragto awlaadeeda hase ahaatee adigoo dhalay ama 2 cunug 3 cunug 4 cunug haysta isla markaasina garoob ah inaad faarax isku qurxisid isla markaasina jirkaaga aad qaliin gelisid oo lacag badan aad ku beerdaraysid ha ku xanuunsanin oo ha ku geeriyoonin lacagtaasi adaa u baahan ilmahaada ayaa u baahan inaad sadaqaysatid ama waalidkaada xajka ku geysid ayaa u baahan haddaba gabadhaani waxa ay leedahay gabar kastoo Soomaaliyeed oo ku haminaysa inay Turkiga soo aado ogow hooyas 47 jir ah ayaa ku dhimatay qaliinkaasi haddana gabadhaani aad muuqaalka ugu jeedaan ayaa sariir u saaran ducana loogu dalbayaa isla markaasina inuu Ilaahay caafiyo isla markaasina daawooyinkii iyo qaliinkii ayaa dhibaato soo gaarsiiyay fadlan u duceey walaashaada sheergalay muuqaalkaani dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka